wax walba iyadoo darteed ayuu u huray uu caawiyay ilaa ay ka noqotay atariisho aad caan u ah. abaalkii uu galay waxay ugu badashay inay noloshiisa u badasho mid jaxiimo ah. waxa uu jeclaa jacayl gaarsiisan heer waali ah, laakiinse waxay ku khiyaantay oo dabamartaysay mid kamid ah saaxiibadiisa ugu dhowdhow. dhacdadaas kadib muxuu falay? ilaa maanta se muxuu u diidaa inuu guursado? maanta waxaan ka shifi doonaa sirta atooraha murugaysan jilaaga la jecel yahay ee Salmaan Khan. sanooyinkii sagaashameeyadii Ashaweri Rai waxay ahayd gabadha ugu qurux badan Hindiya bal caalamka oo dhan. sanadii 1994 waxay heshay abaalmarinta ah gabadha ugu quruxda badan caalamka. Ashaweri Rai iyadoo ka faa'iideysanaysa quruxdeedan aadka u heer sareysay waxa ay xoog ku soo gashay fanniga jilitaanka. waxay la kulantay atooraha Salmaan Khan kaasoo u jeclaaday heer gaarsiisan waali. markii ay ku soo biirtay fanniga jilitaanka waxay noqotay mid ay xun tahay wax jilinkeedu u xun yahay oo aan ku fiicnayn wax jirista. laakiin isagu halkaas kama uusan eegine waxa uu muuqatay quruxdeeda iyo aad buu uga hirsanaayo oo u daneynayay iyada. wuxuu baray film soo saarayaasha iyo xidigaha ugu waaweyn ee dhinaca jilninka ee Hindiya. arrimahaas uu Salmaan u sameeyay Ashaweri Rai ayay waxay ku noqotay atariishada ugu loogu tigidyo badan yahay dhinaca filmadeeda, sinamooyinka marka laga daarayo filimaanta ay iyadu dhigto in aad iyo aad ma aragtay loo soo buuxsamo oo dadku lacag badan bixiyaan oo tigidyo badan loo keeno oo ma garanaysa haweeneyda marka waxay noqotay ugu loogu jecel yahay filmadeeda. ma ahan inay tahay haweeney filmaanteedu khatar yihiin, laakiin abaalkii uu galay Salmaan Khan iyo quruxda ay leedahay oo isbiirsaday darteed ayay heerkaas ku gaartay. si ay marka Salmaan Khan ugu guddo abaalkii uu galay waxay balan ugu qaaday in ay guursan doonto isaga. waqtigaas Salmaan waxa uu dareemay inuu yahay qofka ugu farxadda badan caalamkan balantaas ay u qaaday darteed, balse ma uusan filanayn inay gabadhaasi noqon doonto haweeneydii noloshiisa burburin lahayd. waqtigu waxa uu socdaba jacaylkiisii wuxuu isku bedelay masayr aan loo dulqaadan karin lana xamili karin. waxaa ku bilowday shaki uu mar walba dareemayay inay ku khiyaamayso saaxiibadiisa ay wada shaqeeyaan ay wax wada jilaan inay ku khiyaamayso. waayo iyadu waa atariishana waa dareemi kartaan film bay jilaysaa, nin bay la kulmaysaa, ninkii bay maartay isku dhowdhawaanayaan, waxyaabo badan baa dhex maraya. marka shaki joogto ah baa ku dhacay ninka. gaar ahaan wuxuu ka shakiyay jilaaga Abhishek ee uu dhalay Amitabh Bachchan ay Soomaalidu u taqaan Cali Dheere. Salmaan masayrkaas uu dareemayay dartiis ayuu gabadhii wuxuu la dhaqmay si daran ayuu ula dhaqmay. kadibna waxaaba uu gaaray heer uu gacan qaado. maalin kamid maalmaha ayuu si adag u dharbaaxay oo u garaacay. dhacdadaas kadib Rai waxa ay ku dhaaratay in aysan guursan doonin, xiriirkana ay u jari doonto Salmaan. waxaan sameeyay ficilkay sameyn lahayd marwo muxtaramad ah. waxa aan dib uga gurtay xiriirkaas sunta ah. Salmaan Khan waxa uu dareemay xanaaq aad u daran waayo wuxuu rumaysan waayay in ay ka tagtay oo ka dhaqaajisay. waxa uu aaday gurigeeda, waxa uuna garaacayay albaabka guriga muddo aad u dheer ilaa gacantiisii dhaawacyo ay ka soo gaareen muddadii dheereed oo garaacay darteed. Raina waxay diidanayd inay gurigeeda keento ninkii garaacay, waxa ayna go'aansatay xitaa inaysan wax telefoon ahaysan ka qaban. Salmaan markii uu dareemay qoys ayuu waxa uu aaday meel ay ku sameynayeen ama ay ku jilaysay film mid kamid ah filmaanteeda. waa uu la murmay, waxa uu ku dhawaadayba inuu mar kale garaaco. nasiib wanaag waxa meesha joogay jilaaga Shah Rukh Khan asagoo awooday inuu ka difaaco Salmaan Khan Ashaweri. Salmaan waxa uu yaqiinsaday inay aad u nacday una dhibsanayso isaga, waxa uuna diiday in uu aqbalo arrinkaas. wuxuu u jihaystay halkaas khamri cabidda isagoo isle khamrigu wuxuu ka saacidi doonaa inaad iyada ilowdid. nasiib darro maandoorihii uu doorka biday ayaa waxa uu ku sababi gaarayba inuu dhinto. maalin kamid maalmaha ayaa waxa uu la kulmay isagoo gaarigiisa wata ayaa waxa uu galay shil gaari. shilkaas oo ay ku geeriyoodeen 2 qof oo isaga gaarigiisa saaraa. isagana waxa soo gaaray dhaawac aad u daran. booliskii waxay ogaadeen inuu gaariga wadayay isaga oo khamraysan oo cabsan baashii khatarta ahayd. waxa lagu xukumay xabsi, balse markii dambe xukunkii xabsiga waa loo fududeeyay oo waxa lagu xukumay ganax lacageed oo aad u fara badan. Salmaan markuu ka badbaaday dhacdadaas kadib waxa uu go'aansaday inuu noloshiisa hore u sii wato oo uusan ku mashquulin wixii la soo dhaafay. inkasta oo uu weli jecel yahay, laakiin waxa uu go'aansaday inuu doogo dareen kasta oo iyada u qabay aasaba. isagoo muhiimada saaray shaqadiisa oo ah jilidda filimaanta inuu si fiican u jilo. kadibna wuxuu noqday aktarada ugu caansan Hindida uguna fiican, waxayna hantidiisu kor u dhaaftay lacag gaaraysa $300 milyan. ilaa maantadan la joogo ma uusan guursan, waxa uuna ku kaaftoomay xiriiro yaryar oo aan u waarin isaga. balse gabadhii Ashaweri Rai ahayd waxay guursatay atooraha Amitabh Bachchan
cali dheere Soomaali u taqaano wiilkiisa ayay guursatay waxayna u dhashay 2 ilmood. wax kastoo ka dhacay Salmaan iyo Ashwariya waxa uu go'aansaday inuu ugu hambaliyeeyo guurkeeda. waxa kaliya ee aan doonayaa waa inay farxad ku noolaato taas oo kaliya ayaa iga yeelisa inaan farxo. inaad kelinimo ku noolaato ayaa ka fiican in aad nolosha la wadaagtid qofkii khaladka ahaa ee aan kugu habboonayn. si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale ah idinkugu soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe, like, follow iyo share. waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabadgelyo. salaamo markasta dunida ka joogtaan.